salaamaad samo wadayaal bal ku soo dhawaada xogaha daahsoonaya isboortiga iyo kuwa aanu u aragno inay yihiin kuwa ugu xiisaha badan xogeena maalinlaha bal aynu isha la raacno xiddi ka tirsan kooxda Barcelona oo uga mahadceliyay Real Madrid inaysan isagu la soo saxiixan iyo kooxda Liverpool oo gebi ahaanba iska diiday fursad ay ku heli kartay soo xirigelinta xiddi ka ciyaara daafaca dambe aynu ku bilownay xiddi ka tirsan kooxda Blaugrana oo uga mahadceliyay Real Madrid inaysan la soo saxiixan isaga xiddiga kooxda kubadda cagta Barcelona Pedri ayaa uga mahadceliyay Real Madrid inaysan la soo saxiixan isaga haddaba waxa uu ku sugan yahay kooxda Barcelona Pedri ayaa u mahadceliyay kooxda Mourinho ee Real uu diiday isaga koorinta uusan u dhaqaaqin ku ciyaarista gegada cagaaran ee New Camp Pedri ayaa uga mahadceliyay kooxda Real Madrid inaysan la soo saxiixan isaga waxa uu sheegay inuu isagu doonayay inuu muddo ka mid noqdo xiddiga kooxda Barcelona 17 sano jirkani ayaa kooxda ka dhisan Real kala liiga uga soo biray Las Palmas waxaana uu dhaliyay 2 gool 10 kulan oo uu xilli ciyaareedkan u saftay kooxda kubadda cagta Barcelona laakiin sheekada daayarkaasi sida ay ka duunaan lahayd kaasi oo ay hoos u dhigtay Real Madrid oo markii horeba tartan kula jirtay inay xiddigani gacanta ku soo dhigto Pedri oo xiddig dhalinyaro oo reer Spain ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inay diiday kooxda saxiixiisa kula tartamaysa Barcelona waa Real Madrid waxaan doonayay inaan tijaabiyo Real laakiin waxa ay sheegeen inaanan heerkaasi weli gaarin ayuu Isniintii u sheegay Center Zero wargeys ka soo baxa gudaha dalka Spain waxaan u mahadcelinayaa kii sheegay inaan u qalmin hadda waxaan ku jiraa kooxdii aan weligay jeclaa ee Barcelona ayaa haatan fadhisa kaalinta 8aad ee kala sareynta horyaalka La Liga waxaana ay 9 dhibcood ka dambaysaa hogaamiyaasha horyaalka Real Sociedad inkastoo ay ciyaareen in 2 kulan ka yara kulamada ay ciyaartay kooxda kubadda cagta Sociedad Pedri ayaa 2 kulan ku soo bilowday safka hore ee kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan isagoo ku raaxaysanaya fursadaha uu uga garab ciyaarayo laacibka 6 jeer ku guuleystay abaalmarinta ballaaran ee Ballon d'Or waa Lionel Messi dabcan waan ku riyoonayay inaan ka garab ciyaaro Lionel Messi sida caruur badan oo haatan dunida dusheeda saaran kubadda cagtana ku xamaasha waxa ay jecel yihiin inay ka garab ciyaaraan isaga waxa uu ka mid yahay xiddigaha ugu awoodda badan marka loo eego kubadda cagta ayuu yiri Pedri oo laacib daayira kooxda Barcelona ayaa kulankeeda soo aadan waxa ay sabtida soo socota foodo ku dari doontaa dhigeeda Atletico de Madrid garoonkeeda Wanda Metropolitano kulan miciyaha la isaga siibi doono Suarez ayaana ka hor imaan doona kooxdiisii hore ee Barcelona xilli dadii badan oo mucaarad iyo muxaafid bay isugu jira ay sugayaan kulankan uu Suarez ka hor imaan doona kooxdiisii hore ee Blaugrana iyo waxa dhexmari doona Lionel Messi isaga bal aynu ka gudubno qodobka aynu u jalaacno dhanka kale kooxda Liverpool ayaa iska diiday fursad ay ku heli kartay laacibka ciyaara dambeydka dhexe kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa hoos u dhigtay fursad ay uga soo saxiixan kartay daafaca Kalidou Koulibaly intii lagu guda jiray suuqii kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan kadib markii ay aragtay qiimaha ay Napoli ku doondoonayso joogdheerahan birta Reedis ayaa si aad ugu baahnay daafac dhexe oo cusub kadib markii ay dhaawacyo muddo dheer harayeen xiddigaha Virgil van Dijk iyo Joao Gomez taa oo keentay in Matip uu noqdo ciyaaryahanka kaliya ee weyn ee booskaasi ka ciyaari kara isagoo aanan inta badan lagu si kalsoonaan karin si kastaba ha ahaatee qabiirka suuqa kala iibsiga ee kooxda kubadda cagta Reedis Maguire ayaa sheegay in Liverpool ay heli lahayd Kalidou Koulibaly inuu qayb ka noqdo kooxdooda xilli ciyaareedka 2020 maadaama Napoli ay doonaysay inay iska iibiso xiddigan bishii Agoosto isagoo ka hadlayay barnaamijka Transfer Window Broadcast Maguire ayaa waxa uu soo jeediyay in kooxda reer Talyaani ee Napoli ay ku doonaysay lacag dhan 60 milyan oo euro oo u dhiganta 53.87 milyan oo gini laacibka reer Senegal ee daafaca dhexe ka ciyaara waa Kalidou Koulibaly isla markaana kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League aysan doonayn inay bixiso lacagahaas lagu doonayo daafaca dhexe ee kooxda kubadda cagtaasi Napoli waa Kalidou Koulibaly kooxda Liverpool ayaa la filayaa inay suuqa gasho marka uu dib u furmo bisha Janaayo iyadoo ciyaaryahanka kooxda Tottenham ee Davinson Sanchez uu ku soo baxay dooq lama filaan oo ay u doonayaan inay ku daboolaan baahida loo qabo daafac dhexe ee kooxda Liverpool haddaba daawadow haddii aad tahay shaqsi nagu cusub fadlan la garee fiidiyogan la wadaag asxaab sidaada oo kala wanaagsan sidoo kale subscribe inoo saar barta YouTube-ka aynu ku leenahay
aad baad ugu mahadsantahay inaad ka mid noqoto saaxiibadeenna. farxad iyo bogaadinna way noo tahay laagarayntaada, sheergarayntaada iyo sidoo kale inaad kommentiga faraha batayd kugu soo furto. tan iyo muuqaalkan mid la mid intaan dib kaga kulmayno guuleysta.